xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka hadlay dagaalka sokeeye ka socda dalka Itoobiya iyo khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka jira dalka Soomaaliya. Qoraal uu barta Twitter ka soo dhigay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka socda Itoobiya iyo xiisadda sii xoogaysanaysa si xal looga gaaro colaadaha. Sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in madaxda Soomaalida sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo gabagabeeyaan doorashada iyo inay isxakameeyaan si uusan u dheeraanin khilaafka siyaasadeed. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhankiisa siiyay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken warbixin ku aadan siday muhiim u tahay in xal laga gaaro dhibaatooyinka ka jira dalalka deriska ay yihiin Itoobiya iyo Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxa ka socda waxa isha ku wada haya dalalka beesha caalamka ee taageerada siiya iyagoona ku baaqay in xal laga gaaro khilaafka u dhaxeeya Farmaajo iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaare Roble doorashaduna sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo. Samir Cabdirasaaq Umar wararka muuqaal baahiya SBTV magaalada caasimadda Muqdisho.